reer Manchester waxay soo dhaweynayaan jaaliyadaha kala duwan ee nooga yimi magaalooyinka kala duwan waxaan u duceynaynaa marka dadkii abaabulay fikirkan lahaa Alpha Trust ducay naga mudan yihiin amaani naga mudan yihiin waxaan leeyahay garabkiina Allah galo waxaan diyaar u nahay aniga cadaacayahan member ayaan ka ahay hadda oo 10 pound la dhiyo bil kasta 10 pound sanadkii 120ka iyo wixii kale oo alla iga soo qaadaba macnaha diyaar u nahay reer Manchesterna waxaan leeyahay diyaar u yihiin sababtoo ah caawa gogashan ayaga fidiyay Alpha Trust wadada haro dadwada ogyahay ama saadar yeeshawba hadkeena daacal walbaba dariiqa kuwa daahadsano oo aan daryeelahayn ayay wadada hasha dugsi iyo hoodayaan agoonta ya dumarkabe hay daacada u ahayd nin walba darafto hoo jira ha looga rabaa dadaal ee waa la daalaya ilaaha howdala halakeen waa hay-ad la aamini karo wax badan qabatay runtii aniga aan marqaati ka ahay dad badan oo la aamini karo oo runtii maaragtay bulshada magac weyn ku leh sharaf weyn ku leh wax kastana lagu aamini karo ayaa insha Allah hadii Ilaahay yaraaho ay yihiin dadka hor socda Alpha Trust ama maaragtay mas'uulka ka ah estimate UNICEF ka samaysay waxa estimate ku samaysay 12.3 million Soomaaliya in ay 43% marka 12.3 ga 43% in ay extreme poverty ay ku nool yihiin taas oo ay xisaabiyeen inay noqotay less than $1 a day qofkii marka waxa aad loogu baahan yahay ama aan aad u soo dhaweynaa ugu faraxsanahay ururada sida Alpha Trust ee u hagar baxaya dhexda u xidhay una kacay in ay gargaaraan ummadooda baahan Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiinba inta markaan ka gudbo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed kuwa Manchester joogiyo ku fadhiya iyo kuwa ay daawan doonaba in aan ugu baaqo oo aan ku yiraahdo ku dhiirada Alpha Trust samafalka ay wado ee u wado dadkeenii danyarta ahaa ama baahida u qabay in wax loo qabto ku dhiirada inaynu ka qayb qaadano ilaahayna waxaan ka baryaynaa ajar iyo xaraasad ilaahay inaka siiyo waxaan tagnay Boorame waxaan la kulanay Cabdisalaam marqaati aaba Soomaali dhahayo xaaskii iyo laba caruura halka bay iga asayihiin biilaan bay u dhinteen wallaah hayo fil qabka hortagaani way ana aaba raciisona wuxuu igu yiri halkan baa ku xabaas caruurteedii iyo xaaskii biyo ay harad biilaan seedreen dadka dadka dhibaataysan waa dadkeena كمون أو بدلمادي مجا الإسلام كي أو كبح صومالي كنتم قبيلا نلقي يقرن أو مجا الإسلام كي وعيشوني نيجي لك تيمانتاس أحسن لك عكذا بتي معنيه إسلام محاكا قال دمير كي إسلام ولا لا الحول مرة بينا إن كديك أموشن أنا رنتان صوارك